kadib duufaantii Nabi Nuux calayhi salaam waxaa bilowday nolosha dadka qarniyo kadib waxaana soo baxay boqortooyooyin iyo dowlado waaweyn kuwaasi oo bilaabay xukunka dadka iyagoo kumanaan sano dadka xukumayay waxaana jiray kuwo xukunkooda ahaa caadil halka kuwa kalena ay ahaayeen gaboodfalayaal haddaba waxaan rabaa inaan kuu sheego afarta boqor ee uu Alle siiyay xukuumado ay sanado badan ay xukumayeen ayna maamulayeen haddaba yee ahaayeen afartani boqor ee aan ka hadlayo afarta boqor waxa ay ahaayeen kuwa adduunka qorax u soo bax iyo qorax u dhac u xukumayay laba waxay ahaayeen muslimiin halka laba kalena ay ahaayeen kuwa kaafiriin ah waxaana kamid ahaa kuwa mu'miniinta ahaa Dulqarnayn kaasoo jibiyay Yaajuuj iyo Maajuuj iyo Nabi Suleymaan kaasoo Allah siiyay boqortooyo aanan hortiisa iyo gadaashiisaba cid kale helin halka labada kaafiriintana ay ahaayeen Nabruud ibnu Kancaan kaasi uu Alle noloshiisa ku soo gabagabeeyay mid ka mid ah xashraadkiisa kuwa ugu daciifsan oo ah kaneeco halka kan labaadna uu ahaa Bukhtanasar haddaba waxaan ku leeyahay ku soo dhawaa muuqaalkeena maanta boqorka koowaad wuxuu ahaa Dulqarnayn wuxuuna ahaa boqor saalix ah haddana caadil ah waana boqorka darbiga weyn ku dhisay Yaajuuj iyo Maajuuj waxaana qisadiisa lagu sheegay Qur'aanka Kariimka Dulqarnayn ciidankiisa waxa ay faafin jireen diinta iyo Alle ka cabsiga waxa uu noolaa 1600 sano boqorka labaad waxa uu ahaa Nabiyullaahi Suleymaan isagana Alle waxa uu siiyay boqornimo aan hortiisa iyo gadaashiisa cid kale aanan la siinin waxaana la siiyay awoodda ah in uu xukumo jinniga insiga iyo shimbiraha sidoo kalena wuxuu fahmi jiray luuqadaha ay ku hadlaan xayawaanada halka boqorka saddexaad ee dhanka kaafiriintana kan koowaad ka ah uu ahaa Namruud waxa uu ahaa boqor kibir badan oo isla weyn kibirkiisana waxa uu gaaray in uu diyaarsado ciidan isagoo raba in uu la dagaalamo Allane isaga uu tusinayo Namruud in uusan awood lahayn waxa uu u soo diray kaneeco yar taasoo sanka ka gashay ugu dambeynna noloshiisa soo gabagabeysay boqorka afraad ee taariikhda soo maray eena ahaa dhanka iyo boqorka labaad ee kaafirka ah waxa uu ahaa Bukhtanasar ama Nabuuqadnasar waxa uuna ka soo jeeday Faris waxa uu ahaa mid kaafir ah oo xadgudbay Alle ayaa reer bani Israa'iil uga dhigay ciqaab Bukhtanasar kadib markii ay dileen Nabi Yaxye calayhi salaam kadib markii ay qoorta ka gooyeen waxa uuna sameeyay mid ka mid ah todobada layaab waana beerta uu u sameeyay xaaskiisa darteeda haddaba haddii aad intana la soo gaartay waxaan kaa codsanaynaa inaad muuqaalka inoo like gareyso